mustaqbalka wiilka u dhashay dalka Boortaqiiska ee loo yaqaan Cristiano Santos Aveiro Ronaldo iyo taageerayaasha Manchester United ayaa war naxdin la keenay. Manchester United wiilka u ciyaaray Cristiano Ronaldo ayaa bixitaankiisa waxa ku farxay qaar ka mid ah ciyaaryahanada qolka labiska ee Manchester United ugu tunka weyn. weli waxaa mugdi ku jira mustaqbalka Cristiano Santos Aveiro Ronaldo iyo kooxda Manchester United ayadoo xidiga oo go'aansaday inuu ka tago kooxda ka arrimaysa magaalada Manchester gaar ahaan garoonka loo yaqaan Old Trafford Stadium. wargeyska Daily Mirror ayaa sheegay in xidiga Manchester United ay si weyn ugu farxeen ayna u dabaaldegeen kadib markii ay maqleen in Cristiano Ronaldo ka codsaday mar labaadna dhiibtay warqadda bixitaanka ee kooxda Old Trafford ka arrimayso. wargeysyada caalamka wax ka qora waxay sheegeen maanta in Cristiano Ronaldo mustaqbalkiisa oo garoonka Old Trafford uu soo gabagaboomi doono 48 saacadood soo socdo kahor inta uu sharxin suuqa kala iibsiga. Cristiano Ronaldo ilaa haatan wuxuu ku dhibaatoonayaa inuu helo ama ku biiro koox ka ciyaarta tartanka xiisaha leh ee dhagaweyne ka oo cid walba ay jeceshahay sanad walba inay ciyaarto. waxaan arkaynaa xilli liska diiday Cristiano Santos Aveiro Ronaldo kaasoo cid walba wada ogtahay in Sanjero ku guuleystay bilada ciyaaryahan walba ku riyooday Ballon d'Or.